What are you doing? Jadi garis asa. Kai. Unasukuma huyu bana. Unasukuma nini? Mbundika. Basaabka gobolka Garissa Cali Buno Qorane iyo saraakiil kale oo lagu eedeeyay arrimo musuqmaasuq oo la xiriirinaya lacag ka badan 2 milyan oo dollar ayaa waxa su'aalo lagu weydiinayaa maxkamad ku taala dalka Kenya. Xir ilaaliyaha guud ee dalka Kenya Nuruddin Xaaji ayaa maalmo ka hor amray in la soo xiro Basaabka. Ciise Xaaji Cabdulle oo si toos ah khadka ugu jira ayaa noo haya wararkii ugu dambeeyay ee xiritaanka Basaabka. Ciise ku soo dhawaad barnaamijkeena. Basaabka sababta loo xiray faahfaahin dheeraad ah ma naga siin kartaa? عايشة عادي هذا وما صنتهاي قميص كأنه صورة في مركي دعوة دوجها جود دلك كينيا نوردين حاجي وكل واقعي إن حبس الله تحاول برسابك قبل كجارسة السجوا لجوا إيدين يو إن السجا يأثر قفو كلا أي وعيان إن كبدن 2 مليون دولار وكتمد هيدا بنجيا الدونكا لوجو تلاقي إن هرمرين مشاريع هرمرينات laga sameeyo gobolka Garissa ayaa lagu eedeeyay waxa kamid ah waxyaabahaas lagu eedeeyay mashaariicda laga sameyn lahaa waxa kamid ah koow in wadooyinka lagu dayactiro laba in suuq weyn oo magaalada Garissa laga dhisayo oo raxay loogu yeero la dhameystiro saddexaadna in Basaabka lagu eedeeyay in uu mas'uuliyadiisa gabay saas awgeedna lacagtii meesha ay ka baxday marka haatan aan ku hadlayo Basaabka waxa uu ku jiraa xabsiga magaalada Nairobi maalinta Britana ayaa maxkamadda la soo taagi doonaa nagaraale hada daawadayaal lacagta waxay gaaraysaa 23 milyan oo dollar Ciise gobolka Garissa ee uu ka soo jeeday Basaabka sidee way jawiga dareenku siduu yahay jawiga hadda uu degan yahay gobolka Garissa dad badan ayaa iyagu taageeraya Basaabka waxay ka soo horjeedaan arintan waxaynu ku eedeynayaan in arin siyaasadeed ay ka dambayso oo qof ama dad siyaasadda ku jiro ay lug ku leeyihiin saas awgeedna isaga la bartilmaameysanayo kuwa kalena waxay sheegayaan in ay mudan tahay in Basaabka lala xisaabtamo saas awgeedna ay ka barsugayaan maxkamadda go'aanka ay qaado laakiin Basaabka iyo dawladdiisa bartooda Facebook waxay soo dhigeen in haatan suuqaasi la dhameystiray lacagta la sheegaya aan la lunsanin saa awgeedna howlihii loogu talagalay la doonayo in sidii loogu talagalay loo fuliyo waa mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Ciise Xaaji Cabdulle oo naga soo biiray magaalada Nairobi mahadsanid Ciise